حنقرنا يا أنيقو أرضي سكول كديقتها هوسي أيها وحن أركي جري نين والان أو مقالة قدار هذا مرة متفردية نينكاسي wax kale ma akhriyo marka waxaan filayaa 10 jir meelaas qiyaastii baan ahaa ninkaasi waa nin feedha qaawan sarwaal yar oo gaaban buu xidhan yahay timaha ku baxay wuu rafaadsan yahay mar qura istaagi maayo marba meherad buu hor fadhiisanaya marba waa ordaya marba halkaas uu maraya hal eray buu ku celcelinaya wuxuu leeyahay habaar waalid aniga qabo isku huba ma harsado uu leeyahay wax kale ma leh waxa la ii sheegay inuu dareewal ahaa baan yara weydiiyay waqti dambe dareewal gawaadhida waaweyn ee in tareeda la oran jiray ee dhuxusha gobolada dhexe ka qaadi jiray koonfurta u qaadi jiray ayuu ahaa aabihii oo baahan oo abaari hayso oo aradan ayaa u yimid isagoo gaadhigii ku jooga wadninka gaadhiga kala jiidan wata way u kala caddahay barwaaqadu ahaa markaasuu intuu gidaar fadhiisiyo la balay buu ka baxay oday maanta oo dhan ba ha sugo ha ku soo laba jeer noqdo goor dambe gabalkiisii dhici doonay baa la yiri kee salaadii duhur ka hor buu tagay habaarkaas ku dhacay adduunyada wuxuu ku isagoo de sidaa u khariban oo baabaasan ayaa dagaalkii wadanka ka dhacay ma jiro dhintay iminka in kale qofan qaraabanahay wuxuu iga sheekayo hada dhintay xilli abaara buu yiri ama jiilaal oo xilligu yara adag yahay ayaa waxa dhacday abahayo uu yiri ayaa ninkii noogu weynaa ama raggi waaweyn nin kamida ayuu yiri oroodo awrka kaxeeyo hargahana qaado soo iibiyo heerka raashin u soo sii awrkii buu soo kaxeeyay hargihiina waa soo qaaday ninku wuxuu ciyaaraa turubka khamaarku aad ugu dheerayn jiray waxa balwadna waa balaayo meel uu bahalkii lagu ciyaarayo soo galay turubkii dabeetana turubkii wax ka ciyaaray khamaarkii wixii markaa uu hayay waa laga helay hargihii loo soo dhiibay buu dhigtay waa laga helay heeriyadii awr ku dhigtay waa laga helay ninkii baa la waayay laba cisho heerkii waa yaabeen dabeetana waa la isweydiiyo odaygii aqalkii miyigu joogaa war ninkii hebel ama aragtay awrkaagii baa magaalada kullay geed ku xidhnaayo cadaysima ah inankiina wixii waxa naloo sheegay inuu yara khamaar iyo intuu wax ku ciyaaray wixii ba laga helay wuxuu la soo guriya tago ayuu waayay qofkan qaraabadana iga sheekeynay wuxuu igu yiri sidaas uu eegay biiro wadada suuq wadadii magaalada u kacaysay buu saa u eegay odaygii markaas wuxuu yiri ilaahay waxaan ka bariyay adigoo feera qaawan oo sarwaal daba gaaba xidhan oo dhangadad awrka ku kaxaysay gacanta ku sita halka inaad ka soo gasho labada halkaana labada law iyo surka isku jabsato naftu kaaga baxda buu galabtii ku saddex ahayd ayuu wadadii ka soo galay isagoo feedha qaawan oo dhangadii awrka ku kaxeeyay wata oo daba gaab xidhan rufirs khabarka waalidku wax noqon karaya ma sidoo soo socday buu yiri ayuu ardaagii aqalkii hooyaday ayuu fadhiistay uu kada loobsaday garka iyo labada loogu isgeliyay waa la kiciyaa waa la fadhiisiyaa waa ku soo noqdaa wax ma cuno ma cabo ma hadlo galabtii ku saddexayda nafta ka baxday buu khatar cadiim wili aabahay hooyadu way kala duwan yihiin hooyadu waxa laga yaabaa in waxeedu hadal isaga bato aabuhu hadduu afka kala qaado waa khalas cadiim waxaan leenahay marka in waalidka la iska ilaaliyo wax badan baa rasuulku ka warramay wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ma jiro dambi ilaahay agtii cuqubadiisu ka degdeg badan tahay adduunka qofku inay ku dhacdo iyadoo ay dheer tahay aakhira wixii ilaahay u diyaariyay laba dambi baa ugu khatarsan wacaasi waalidnimada iyo gardarrada iyo xadgudubka nabiga alayhi salaatu wasalaam wa khatar cadiim in waalidka iyo xaqiisa la iska ilaaliyo الكريم في بيتك bishaaro bulshoy haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxaanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada culumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada
isqoristu waa ay socotaa wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku